السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجدا وجية محا عصب يا لقورس جارينا يا قورس هذا اللي قفجنا يا دورشوينكي حاجة مريان dadkii barakacayaasha ahaa dib u jidintii bay dhawa ka bilaawatay guddigii Cabdicasiis lafta gareen uu xil saaray maxaa ka hirgalay aad bay ugu mahadsan yihiin dadkii ka hortagay isku xilqaamay dadkii muwaadiniintooda ahaa ee muwaadiniinteena ahaa ee la soo faquuqay waqooyi laga soo faquuqay guddigii xil saaray mudan Cabdicasiis doorashooyinka maxaa ka soo socda Axmed Maxamed Islaan qorshihiisu wuxuu ahaa nimankan uu meesha soo tubay waa nin og dadkiisa meesha ka jiraan kow waxaa mahad u celinaynaa ilaahay ka sokow mudane Cabdicasiis lafta gareen oo ka hortag sameeyay كباران دقي دب الدجين السمية وليب السمية برنامج اللي يراهدو employment and dislocation program dislocated and employment program dislocated كوحي هاي أفكار مركو شقادو كالعام كودعدو يا dislocated program not only إنه العكسي دتكي لسوا فقوقي وقوي لقى فقوقي دب الجدين في الوسمية but dadkii ayaa waxa loo sameeynaya wax la yiraahdo employment and dislocated or dislocation whatever aad taqaanaan macnaheedu wuxuu yahay qofka inuu shaqaysan karo inuu san xiraq wuxuu joogin oo maanta oo dhan wax la siino oo weel wad futada ka duleelo oo noqon waxa waaye qofka dadkii way yimaadeen dhowr baabuur diyaarado saddex mar oo diyaarad ah baabuur wax kasta ku yimaadeen way soo gaareen koonfur galbeed badanaa over waxaan dhihi karaan 80% dadkii markay yimaadeen ayaa wax loo sameeyay wax la yiraahdo dadkan in ay meel tagaan oo guryahooda ku noqdaan ilaa waa dad hore u shaqaysan jiray oo shaqada yaqaano wax soo saar leh investment fiican yaqaano dadkii waxa loo sameeyay in wax la siiyaa si uusan bari meel u fadhiisano bur iyo saliid uusan u sugin guryahooda inay aadaan haday guriga qabin guriga waxay ku dhistaan haday dhul la'aan ahaayeen meel baa loo dhisayaa meeshiis haduu gurigiisu ka jabnaa gurigiisa loo dhisayaa haduu maxaa la dhahaa dukaan iyo wax lahaa iqraraf asaga u taala lacag fiican oo aad u fiican oo aniga baan 5 sano sameeyna la siinaya aniga xataa 5 sano ma sameeyay lacagta la siinaya 5 years ma sameeyay marka waa ku mahadsan yahay mudane Cabdicasiis lafta gareen iyo guddigii uu xil saaray maro aamina ku jirtay dad badan oo xil saaran maxaa ka soo socda maxay ku dhamaatay doorashadii Ismaayo شركة وقفت ما قامريسان وركور وهذا محيطة حان لحب قول إيه وحاسة عنيك كو هاللاي 600 بلاس وشي كذا سبا فيري ما قامريسان وركور كو سعودة شركة وادينك قضبات دورك ودور كورونا وانيشي دي بجدنتي كونفور قلبت جيستي ديار جروجي مدحوين لفت قرن وسمي دي بجدنتي سي diyaar garowgii looga diyaar garoobay baydhaba ilaa iyo dhulalka koonfur galbeed oo dhan doorashadii ka soo baxday Kismaayo oo uu Axmed Islaan ku keensaday dadku keensaday doorashooyinkan laakiin waxa laga rabaa guddiga inuu asaga isku tashto guddiga doorashooyinka waa inay iyaga isku tashtaan arrinta dhanka جالو وزير وكو سلام حلبانة نعيم عطش
وعليكم السلام. وكوجي ذا صاحبتها أنا وابع دي إندي عادي ما قاعد إلى شيء مربين لكن ما شيء كرا صاحبتها عم باش تورد دي وابع دي إندي عادي إندي دنك يالتي عادي وصار قنيسة شركة بيج كان بيج عصب واحد خوف البو بيج كي وين بو هذا لكن كم بقى عصب ما أنا فدي يمكن يجي أسكم لينا هنا في مصر كرت واحد لاين رالي هذا واي بخشاهم لينا الحمد لله مرينا دور شدي جبلان إنكسر الصومالي يكون مع هذا نريك حلال مع الله هل حرام نريك حلال مرش تاس عبد المرينا dadkii dib u jijinta loo sameeyay Cabdi Casiis lafta gareen oo xilka u saaray guddiga u saaray oo guddigu magacaabana aad baa loogu soo dhaweeyay not only in la dejiyay laakiin lacag baa iyo waxba loo qaybinayaa ay ku sameystaan ama meel ay degaan ama business ku galaan ama guri ku dhistaan adiga waxaa daran in dadka qaxooti noqdaa meel fadhiistaan ilaa dadka dad shaqaystay hayeen soo hadii xoogaa la bushkareeyo dislocating program loo sameeyo employment loo sameeyo iyaga isku filan wadankaaga inaad qaxooti ku noqoto waa laga fiican yahay waxa ka fiican inaad maxaa la dhahaa adiga isku tashataa dadka meesha ka yimaadeen nin walba gurigiisu qabaa marka programka loo wado iyo sida loo wado aad u fiican yahay in dadkan bralox salaam قضية جواب سلام سندس جواب سلام السلام عليكم سندس thank you وعليكم السلام كل جينا وسلامتي انت داون ان شاء الله هذا على المشريك انت صقف اسلوتشي قضية جواب سلام سندس جواب سلام مرقع بروجرام لم يتحولي مارك بروجرام كده كلو سمية بايدبل لك سمية عبد العزيز لفت كرانيو جود وحل صار أول صومالي وحنا نقاني ده أنت صبحه العقل هو قاطع مال لاسو وذو بوريس ريد لسيه مجرد قفك وحلا له الربع لقى عاونا يا جورجيس وكنا قنا يا جورجيس ثم مرة وصور شقتك يا دورك مجال وكلا العقل وحقوقتنا مو هايستا العقل كوشق يستنا مو هايستا وحو وحكو استعمالنا مو هايستا وحو المهيسي دبك وحو صارتنا مو هايستا اكسترا ولي وحو هايستا وحو بيزنس كو قالو therefore waxaa imaanaysa investment wax la dhaho magaaladii ay yimaadeen ilaa magaalo kale ba way joogeen way dhisaayeen magaaladoodii u soo noqdeen markay magaaladoodu u soo noqdeen magaaladoodii aad dhismayso oo lacagtii ay gelinayeen lacagtii magaalada ay gelinayaan magaaladii u dhismayso magaalada u soconayso shaqo abuur waxa la yiraahdaa sameynayaan shaqo abuuranayaan waa loo shaqeynayaa iyaga business ay furanayaan waa loo shaqeynaya dad ay shaqaaleysiinayaan guryahooda hadduu ka jabsanaa way ku samaysanayaan shaqana way ku abuuran karaan haddii guri uusan lahayn guri wuu ku gadan karaa lacag aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u anfacaysa aad iyo aad u badan waay haddii uusan guri lahaynna guri ijaar xad ilaa uu ka shaqaysto uu samaysan karaa so waa program aad iyo aad u fiican waa program dhankaas iyo adduunka laga isticmaalo badanaa Soomaalidu waxay isku suujisaa in dad meel lagu soo xirto oo hadhoodii lagu xisaabtamo la dad baa meel lagu xiraa laakiin programkan aad u duway waxa la diidaa qaxooti ina guriga ku noqotid guriga ku leedahay dhul baa ku leedahay gurigaaga aad wixii lagu siin karaa lagu siinayaa develop shaqo abuur dad shaqo u abuur magaalada dhis
ilaan meel kaleba buuro iyo saxaraba waa soo dhistay marka programkaas aad iyo aad uga helay markii ii sheegay faahfaahintiisana hadhowdii baan rabaa inaan aad iyo aad markaan u aqriyo aan arko hadda dafcaddii koowaad labaad saddexaad dadkii lacagtii waa la dibdejinaa lagu sameeyey meel baa nin walba gurigiisu tagaya familkiisa intuu ka kooban yahay say u kala badan yihiin marka barnaamij aad u fiican aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad ay uga soo fikireen dowlad goboleedka koonfur galbeed aad uga soo fikireen weligay barnaamijkan camal ma arkin kuma arag dadkan hadda Soomaaliya ka barakaca ama Afrika oo meel inta lagu soo xirto lagu xisaabtamo lagu gorgortamo ma aha saaxiib waa shaqaysan jirta meel laga shaqeeyaa ka timid waa shaqaysataa halkan baa timid lacag baa lagu siinayaa deegaankaagii wixii lagu siin karaba ama lacag ha ahaato ama wax business ku abuuro gurigaaga ku soo noqotay is your home guest kuma tihid marti kuma tihid kooyto kuma tihid idinkaa leh gurigiina shaqadii iyo wixii aad ka abuurteen meelahaas kale laba jibaarkeed oo ku abuuraysa dad afgaranaysa inaad joogo magaaladiina dhista maxay ahayd meelaha ku qorna arki jiray dal walbaba dadkiisa dhistamay ahayd asaas camal marka dhiso magaaladaada saaxiib meel inaad tagtid barakaca noqotid muqdisho tag ismaaciil tag waqooyi tag hiiraan tag nonsense gurceel tag qardha tag whatever waxba kuma tarayso gurigaaga joog ijaarkaaga ku baaqana xaafadaada joogtaa lacagtaa samayso gurigaaga gasho program aad ugu riyaaqay aad iyo aad ugu riyaaqay programkaas aad ay ugu mahadsan yihiin guddiga soo alfay waa dad aad iyo aad humanitarian ugu fiican halka waxaan idhahayaa ama aan oran lahaa muna maxamed oo ku salaamay سندس وقت سلامي أبح وقت سلامي استاهل وقت سلامي جماد أم سلامتين أنت أصلاً يقدر بقينا هاي this is my page كام والعزبي هاي والله والله يا بنتي ونيجي ذا page كلا كم سوق اللي كنا كسوق عليه because كان بحواجة backup page هي هاي share قراية page كان share قراية كنا درسنا subscribe كي like وعدين عينه dibudijintii lafta gareen aad iyo aad loogu riyaaqay adduunka waa wax ku dayasho leh meel kasto gobolada Soomaaliyeed kamid ah inta gobol afarta gobol Hiiraan ha noqoto Kismaayo ha noqoto Garowe ha noqoto Galmudug ha noqoto meel kasta ha noqoto waa meel ay tahay in lagu daysadaa banaadir ha noqoto in lagu daysadaa berri markuu barakac ka dhaco dadka sidii loo waxaan lahaa loo dibujin loogu sameyn lahaa si iyagii ay u shaqaystaan nad in la biilaa oo bur isliid la siiya barakacayaasha Soomaaliya 30 sano meesha fadhiya wadadii waa xireen boosneerooyinkii waa ciriiriyeen meelihii la degi lahaa way environmentally dysfunction ay ka dhigeen marka waxaa loo baahan yahay in gurigaagii ah ku laabataa sidaas oo kale wasiil lagu sameeyo wasiil meesha la yiraahdo kalkacayno laga sameeyo umaleena hadda kor it's good program laakiin saas amal ma aanu sil inkasto dadkii email dageen intay guryahooda ku noqon lahayd because meeshii ku noqon lahaayeen ba balaaya ka jirto dagaal ka socdo la haystay oo la isku haystay laba koox isku haystay marka kan waxay ugu duwan tahay meel baa laga soo fuquuqay laga soo cunsuriyay waa soo baxday gurigaaga timid waxa lagu yiri shaqadan abuuro gurigaaga timid gurigaaga lagu biilay waxa lagu dhahay waa kana gacanta ku qabso shaqo abuuro guriga dhiso cidana ilaa iyo hal sano cidda waa qoodisaa 10 qof lacag 10 qof hal sano qoodiso ay masruufan karaan la siiyo ka badan 10 sano hal sano ka badan lacag ay qoodan karaan la siiyo 10 qof ka badan wali oo xataa bari masuunta deersay cuni karaan marka waa horumar waa talaabo aad iyo aad u weyn oo ugu mahad celinaya aad iyo aad u mahadsan yahay mudane Cabdicasiis in dadkaas aysan meel fadhiisan
oo contract lagu qaadan humanitarian iyo balaayo lagu qaadan laakiin magaalada ay investment ku sameeyaan si dadka doorashada u imaanayo iyagaba ay magaalada u dhisaan ilaa ninka doorashada u imaanayo ama ninka martida ah magaalada lacag buu gelinaya waxbuu bilinaya waxbuu keenaya waxbuu gadanaya hotel u seexanaya cunto cunaya adigiina waxaa laga doonayaa markaas in dadka ku imaanaya aad ka faa'iidaysataa meelay wax ka cunaan meelay wax ka gataan meelay fadhiistaan u abuurtaa si wixii xagga uga soo tagtay iska ilow 30 sano waa la maqnaa oo umada barakacday oo guryahooda aan ogeyn adiga meel xun oo qaxooti ah ku ahayd iska dhaaf iska ilow gurigaaga ay joogtaa gurigaaga dhiso investment samee gurigaaga waxeeso magaaladii koonfur galbeed doorasho ka bilaabanayso dadka doorashada u imaanayo shaqo u abuur waxay cunaan si meelay wax ka cabaan meelay seexdaan waxay gataan tusbax koofid cimaamad whatever ay rabaan kabo si keen magaalada furfur dawladdu way ku soo dejisay lacag bay ku siisay ama waxbay kula qabatay oo ah wixii lagugu talagaday oo barakicintii iyo faquuqii lagugu soo sameeyay magdaw bay ku siisay iyada kuguma sameyn dad kale kugu sameeyay bad waxa lagu siiyay magdaw xilli aan ogahana ilaaha ogaade xilli aan ogaa 5 sano ka hor oodka caaga la cunaayay in wax lagu siiyay iska dhaaf jidka saxayda jidka u qaadatay waxa cunaayeen dad ilaahay ogyahay oo heer sare maanta laakiin investment lagu siiyay ina soo degtaa gurigaaga aada wax dhisataa shaqo abuurtaa dadka ku yimaadana shaqo u abuurtaa iyagina ganacsi u samaysaa very smart movement aad u fiican waligii kuma fikireen inay dhacayso xaso kale wala yaab marka dadkii ka soo shaqeeyay guddigii uu xil saaray Cabdicasiis aad u mahadsan yihiin dadkii waajibaadkooda waa guteen waa maqleen guryahoodii waa aadeen inta ugu horeyso inta dambana waxaa la rajaynayaa guryahooda inay tagaan oo ay dhulkooda iyo kistaan dhulkooda maalgashtaan magaaladooda maxaa ka doonay meel saxara ah aan biyo lahayn magaaladaada dhiso 30 sano hadda ka hor hadaa joogi lahayd maanta multi-millionaire ahaan lahayd meel laga respect kareena laga yaqaan xaq doonay meel aan socdo ma ya aniga banaadir aqaana meel kale ma aqaan meeshaan ka imaado ama ku soo indha furtay xataa marab inta imaaday inta awogay abulankay ku dhashay meeshaan aan ka qaraabana ama meel ku soo indha qaaday oo whatever middle school to grad school ku aaday yes maraba inuu ku noqdo meeshaan aan rabaa aniga this is my place this is where my great parents lafahooda ku duugan yihiin marka waxaan ii sheegayaa dhulkaaga wax kaaga fiican male gurigaaga wax kaaga fiican male barnaamijkan hadda la wado waa barnaamij laga faa'iideysto oo aad looga faa'iideysto oo aad looga faa'iideysto oo aad wadankan u dhisaayo dhulkaaga u dhisaayo gurigaaga u dhisaayo investment ku siinaayo dadka ku imaan doona in the next month or two iyagana u sii diyaar garow wixii aad ka iibin lahayd lacagtaada wax ku qabso mandheera ku dhow ka soo adeego gobolada kale dariska aad tihiin ku dhow ilaa igada ku dhow ilaa waxa ku dhow Kismaayo area aad ilaa ay Muqdisho imaaw ilaa ay dhankaas daa ka baxdo whatever aad taqaan Hiiraan tag adiga Ethiopia tag wala dayad tag aad taqaan meesh ku dhow oo aad alaab ama waxyaalo aad iibisa aad ka soo heli kartid marka waxaan dhihi lahaa aad uga mahad celinaynaa guddigii Cabdicasiis Laftagareen oo xil saaray ee soo dhaweynta iyo dib u dejinta dadka walaalahooda ahaa ee la soo faquuqay ee maanta shaqo loo abuuray guryahoodii tagay guryahoodii dhistay diyaarna u ah in ay maalgashtaan guryahooda that's your birthright waxaa la dhahaa xaq ku leedahay waxa ku dhalatay iyo meesha ku dhalatay that's your birthright my birthright waxa haysta waa meeshaan jooga waa meesha awoowayaashay iga tageen whatever ay ahaato so wabillahi tawfiiq
هذا نيجو مهد علينا يا قبلها نروح ذبضل فرط إيو لوف كيس ودرا ومهتدين بيج كان بيج كي وينا معها لكن عن سكودا إنا نيبره لايك شير كانوا دقينا سبسكرايب باليوتيوب channel كانوا تقانين بروديوسر كيجا هذا والله بحياة يوتيوب channel كفوتوريا سبسكريبشن كوا أذيك دقينا هذا عظم هذا علينا يا مدن عبد العزيز لفت جرين مروة آمنة dadkii loo xil saaray dadka ku jiro aad uma haysantiin barnaamijka quruxda badnaa ee aad u qabateen dadka walaalihiina ah ee soo barakacay barnaamij hadda ka hor Soomaaliya ka dhacay maaha in dadka investment lagu sameeyo dislocated program loo sameeyo aad ayuu xilnaa ma haddaasna waxa leh dawladda federaalka oo ka dambeysay ama backbone u noqotay foundation u noqotay in dadkaas ay shaqo helaan shaqana abuurtaan wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum